السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وأين سلامي سومالي محمد صاحب بيال يالك استاذ شوكتان وأين سلامي وأنا استيح حسن فلق وأين صور هايسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب بيالو يا سومالي محمدي وين السلامة شاه. السلام عليكم وهؤلاء هيجي أنكم بلا بشري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد صاحب بيال سكية وانا السلامة هورتا ميل كستو شوكتان وانا استيح حسن فلق وهالكا مانتي شوكته وتركيا meelihii la fariisan jiray xarkaa ku xirxiran lama fariisan karo waxayna lama fariisan karo because qof kasta iska fariisanaya qof bukay qof iyo bahalkii sankana waa kaasa hadda iska furay waa iska dadaalayna ilaahay dadaal buu ku yiri waa kula jirayaaye marka saaxiibayaal sheekadan virus waxay ahayd corona virus oo aan wax badan dhageystay Soomaalida sida ay uga kala falceliyeen aadamku uga kala falceliyay ayaan rabaa wax yar maadaama aan wax badan dhageystay oo wax badan arkay inaan wax yar maaragtay anigu ku darsado bulshada Soomaaliyeed inaan wax yar ku darsado ayaan rabaa. runtii waanu kala raagnay bulshada ma nabad baa weydin basaasay weeye. waxaan rabaa horta inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan rabaa especially kuwa aad ii xiriiriya oo ii soo waca oo ii jecel aad baan ii jecelahay idinkana dad waxaa jira maalin kasta soo waca dad magacyo badan igu yeera xildhibaanka gabadha qaranka Hillary Clinton dad baa ii baxshay inaan ahay qof hogaamiya oo la ii baahan yahay oo ay rabaan inaan maaragtay hogaam noqdo oo aan dalka Soomaaliya aan maaragtay wax uun hogaanka noqdo ummadda maadaama aan saaxiibo badan leeyahay ha ahaato Somaliland ha ahaato koonfur galbeed ha ahaato Puntland ha ahaato meel walba aan saaxiibo ku leeyahay waxay jeclaysteen bal inaan mar hogaan noqdo si aan isku keeno bulshada walaalaha kulli isku wada keeni kara laakiin inta taageersan aan bal wax uga qayb qaato. halkaas aan maanta taaganahay waa meel lagu yara nasto oo dadku ku nastaan laakiin way diideen in la fariisto xarkaa ku xirxiran. halkaana waa halkii lagu lugoyn jiray oo dadku ku lugoyn jireen halkaa. halkaas waa meelaha markii ay tahay waqtiyada nasiinada dadku iskugu yimaado laakiin maanta wax jooga male waad arkaysaan. horta cudurkan ilaahay weynaa waxaan ka codsanayaa in ilaahay dhinac naga mariyo intii u dhimatana oo ilaahay naxariista janno siiyo kolley way dhiman lahaayeen inta u ildaranna ilaahayna caafimaad taam siiyo inta uusa soo gaarinna ilaahay inuu dhinac ka mariyo. intaas baan ku duceeyaa hameen walba salaatu leyl baan tukadaa salaad kasto aan tukado intaasaan ku duceeyaa idinkana waxaan ka codsanayaa inaad taa ku ducaysataan inaad ilaahay u carartaan oo ilaahay baridaan. waxaani waa mucjiso rabbaaniya oo maaragtay mucjiso rabbaaniya weeyaan. marka adduunka waxay ku leeyihiin dadkii oran jiray annaga maaragtay awood weyn annaga quwada weyn annaga waxaan haysanaa qalabka adduunka ugu weyn annaga caafimaadka hore ugu marnay annaga maaragtay waa America ay ka mid yihiin iyo Ruushka iyo maanta waxa weeye aqalladii baa laga soo bixi waayay. marka walaal waa mucjiso rabbaaniya laakiin anu hal mid ayaan ku darsan lahaa arrinta ayada arrintaas waxay tahay muddaan fakarahayay oo dadkii kala cararhayaan oo dadkii kala fogaanhayaan oo dadka ay soo booqanayn. aniga kolley waxaan isleeyahay qofkii dhiman lahaa wuu dhimanayaa qofkii cudurkan u dhiman lahaa wuu dhimanayaa saacadiisa marna loogu dari mahayo 1 daqiiqo loogu dari mahayo 1 daqiiqana laga dhimi mahayo kolley qofkaas wuu dhiman lahaa inkastoo taxadarka ilaahay uu maaragtay ilaahay taxadarana yiri haddana waxaan isleeyahay kolley qofkaas wuu dhiman lahaa oo waxa waayaan la oranin dad baa naga dhintay waa qofkaas wuu dhiman lahaa qof kastana wuu dhimanayaa qof kasta wuxuu og yahay inuu dhimanayo ama corona u dhimo ama kud u yaqanjo u dhimo
ama balaayo u dhimo waad dhiman lahayd kolley qofkaasi waa dhiman lahaa sidaas aan horta aan iska dhaadhicinno kow waa kow taa midda labaad anigu intaan hadda garaad yeeshay waxaan arki jiray ama maqli jiray cudurro badan oo yimaada waxaan maqli jiray sanadkii daacunleey waxaan maqli jiray sanadkii furuqle waxaan maqli jiray sanadkii duumaale waxaan maqli jiray cudurro badan baa imaan jiray anigu waxaan isleeyahay cudurradii imaan jiray oo dadka leen jiray cudurkan waxba kama duwnaa adduunku baa hadda waxay leeyihiin waa horumarnay oo baanbuuninaya oo dadka waxay ku ridahayaan maxay ahayd toy paranoia waxa la yiraahdaa nacam inuu qofku shakiyo oo wax walba aad ka shakido oo wax walba aad tiraahdo waa ka hortagaya cudurkan ka hortagaya cudurkan dabar jarayna cudurkan baabi'inayna taasi wax suurtagal ma ahan waxaan lama baabi'in karo ilaahay wuxuu keenay lama baabi'in karo sidaasna ogaataan waa I think hadda in taxadarku iska bannaan yahay xoogaa wax la fiirsho anigu waan qabaa oo la fiirsho waxaan ma hawada wada mase dadka ayaa wada in yara la xakameeyo maaragtay oo tijaabooyin la qaado waan qabaa oo waxaan horta wax walba la ogaado waxa ay yihiin oo la dadaalo laakiin haddaad tiraahdo maanta cudurkan haddaan loo dhiman hayo qofkaas waa noolaan lahaa no dadkaan dhimanaya way dhiman lahayn saacadahoodii bay dhinteen qof kastoo Soomaaliyana waqtigiisuu dhimanaya wuuna dhimanaya maanta uu dhiman lahaa waqti loogu dari maayo waqtina laga dhimayo intaas un baan la dhaafi walaalayaal saaxiibayaal sokeeye Soomaali Maxamed I love you all especially inta aad ii jecel magacyadooda ma sheegayo inta mar kasta i soo wacda oo i dhiirigelisa oo maaragtay runtii dad badan oo waxaa jira qofka bini aadanka xaqira yaa inta aan dadka xaqirin waa xalaasha especially waxaan leeyahay I love you all waa mahadsantihiin thank you for calling always ay soo wacdaan aad ila jirtaan I love you all especially dadka ii dhadhow oo i jecel anna waa jeclahay bye